dhacdo xanuun badan baa dhaxmartay saxaabiga garanaysan Saciid ibn Zayd al-Adawi min al-10 al-mubashirin bil janna ku jiray iyo gabadh la oran jiray Arwa bint Uways ayaa dacwootay oo Marwan al-Hakam bay u dacwootay markuu Madiina ka ahaa waaliga iyo amiirka ka ah waxayna ku tiri Saciid ibn Zayd ayaa suuxdintii igu soo riixay oo dhulba igu haystaa dhul aan la habo iga qaatay Marwan baa u yeeray Saciid ibn Zayd oo waayeela markaas uu yiri haweeneydana ka dacwoonaysa oo maxay ugu haysataa waxay leedahay dhulba iga qaatay oo meeshu guriga uu ka jeexday ana iskale soodintiisana xaqay ka tahay anaguna xaq warbay akhriday wuxuu may dhamaysataa Marwan oo hal baan ku leeyahay buu ayadana hal baan leeyahay adiga waxaan ku leeyahay buu inta Nabi Maxamed aan ka maqlay asagoo yiri ninkii taako iyo wax yar oo dhul ruux ku dulmiyay ka xada ama ka dhaca aakhira qoorta loo soo geeyo 7 dhul oo banka qiyaamo la imanaya inta nabiga ka maqlay seen aadam dhul oga dhici buu ogana xadahaya haweenadana ma dulmin been bay sheegaysaa dhulkaygii baan joogaa horta adigu xadiidkaas aan ku leeyahay buu Marwan wuxuu maada nabiga ka maqlay ha adiga ha bas markaad kale ku weydiin oras ka tagbo naayda furaniga ay aafayni ayada waxaan leeyahay buu ilaahay haday been sheegayso iyo dulmayso waxaan jiray iga masabidatay ilaahay wuxuu qabri gurigeeda ku dhaxdil umada banaan baa lagu xabaalaaye qabrigeeda ku dhaxdil indhahana tir gurigeeda ku dhaxdil oo qabri oga dhig indhahana tir illa wuxuu arkaysa iska in tartiib saxaabigu wuxuu ahaa mustajabu dacwa ninkaas saxaabiga taabiciga ka sheekay Urwatu Zubayr iyo Muhammad Zayd baa ka sheekay labaduba saaday u dhaqaaqday gurigeeda iyo beerta ilaahay waxa iga dhacay Saciid Muuse ku dacwoon ay tagtay indhihi baa dam la sii indhihi baa madoobaada waligeed ilkamaysa sheegad maalinka dambe ayadoo hamagsanayso beerta qudhigeeda iyo dhulka dhex socoto oo u haysato darbiga tasabsanaysa iyo ceel ka fakatay ceelkii baa laga soo bixin waayay waa lagu xabaalay muxuu ku habaaray indhaha inuu Allah tiro gurigeedana lagu dhex dugo qabri looga dhigo indhihi baa ilaahay gabsiyay gurigeena qabri buu u noqday Maxamed Zayd wuxuu wax yar kadib ayaa roob badan baa yimid oo Madiina qabtay dhoolka dhan bay roobki xaaqeen oo qodeen waxa soo baxay dhagaxyii waagi dhulka la qaybsanaya astaamaha la dhigay u dhaxeeyay soodin u ahaa Saciid ibn Zayd iyo Arwa bint Uways markaas waxa la arkay buu dhul uu leeyahay Saciid ibn Zayd inuu ku jiro dhulkeedii oo dhagaxyuhu bay ku jiraan gudaha idan maxay ahayd haweenaydu ظالمت دولانتي صحابيga saxaabun wuxuu ahaa saadiq fi madda'a oo wuxuu inta Nabi Maxamed ka maqlay xadiidka miyaanu dhul dhacaya oo dhul dulmahaya roobkii baa ilaahay soo diray wuxuu ka shafay roob waa taqaanaa magaalo ku dhaca aan laami ahayn wuxuu caradu cunaya guryaha salkooda wuxuu qahaya wuxuu dhan buu qaadahaya markaas waxa soo baxay waaga dhulka la qaybsanay dhagaxyihii la qootanyay faylka la galiyay lagu kala soocayay dholalka iyo guryaha markaas reemidoo dhan waxay ogaadeen saxaabigu inuu ahaa madluum ayadna ay daalimad ahayd daaba la bagay ku tayaa ha habaare waa halis weey dhulka iska ilaaliya dholalka iska ilaaliya Nairobi hadda dhul intaad ku waalateen baa la isbaabiinaya dhulal intaad ku waalateen baa la isdulmaya nus mitir iga durug maya hal mitir iyo badh iga durug hanka hawada keele maya salka ugu qaba baabi'i marka hadda waxaan u malaynayaa dhul caadi ruuxu dulmay baa leeyahay qoorta loo soo gelin leh waxaan ka baqayaa dhulka in la idinku daro 16 dabaq oo kale oo dhagax oo shub ah is ilaaliya aad la soo ilaaliya nin kamida jamaacada masjidka cashirkan dhageysta oo haddaba fadhiya ya markan cishaha ka baxanay yimid qisada kullu leh misalada kullu loo ii sheego xanuun badan soo xaqiiji baan idhi bal xog inta ka badan keen saaka fajarkii baan meel ku wada tukanay cid ay qabsatay lambarkeedii ruuxi laga xiriir lahaa goobtii wuxuu faahfaahsan buu keenay maana la xiriirin meesha ayada farahan ka qaaday intuu asagu ii sheegay baan idin sheegay oo xanuun badan maradunin odayna yahay hawshina keenay cadaymihii lambarkan la soo istaagay intaas ay gaga filan ninku u baahdana waynu siinayna lambarka iyo howlaha dhanba uu la xiriiri kara qisadaas waxa weeye nin Soomaaliyeed ee South Africa Johannesburg ka shaqaysanay dukaan buu ku lahaa gabadh South African oo gaalad ah ayaa u shaqaynaysay dhaqankii muslimiinta iyo salaadoodii iyo hawlahoodii iyo bay u bogtay dhowr goor bay ku tiri war inaan islaamaan rabaa ee tawxiidka see islaamka lagu soo galaa diinta islaamka inaan galaan rabaa ee caawi qaabkee lagu soo galaa seen yeelaa nadoofari ay shaqaysoon buu dhihi jiray islaamka ma aqaanee shaqaysaan ku uri ay ku soo celisaa nashaqadaada qabso way iska xishootaa maalmo kadib badana soo celisaa canaan buu dhagaha ka raaciya war islaamka inaan galaan rabaa say u lahayd ee islaamka ii geli ama meel kale ii gee ama adugu ii qabo ee asna u wareejin haya u canaanan hayay
بيتي الله كتب قبل وايد متي sidaas ay ku dhimatay aqsaadi aad u xanuun badan gabadha markay geeriyootay ninka Soomaaliyeed war baa galay indhaha markuu isgaliya seexdaba islaantoo socota u imanaysa hebelow inta aad nooshahay baa naari ka xigtay ku tiraada inta aad nooshahay baa naari jahannama ka xigta qalaf markay ka tiraahdo jahannamaad gali anuguna hadda waan cadaabana waa leeyahay cadaaba waxa la yiri intuu hebel ka soo dhimanayo ee booskada lagu bedelahay naar ku jiraysa maalinku asagu qalaf soo yiraahdo booskada naarta asaga galay aduguna jannada lagu geynaya saasay habeen walba oo la timaada indhaha markuu isgalay riyaa ugu iman intaas ku dhigay hurdu ka saahiday dhowr bilood markuu seexan waayay oo indhihiisu taagan yihiin oo xanuunkiisa xad dhaaf noqday oo wadaad loogu yeedhay oo quraan laga la samray oo geed walba la mariyo laga samray hadda waxa loo qaaday Soomaaliya Muqdisho jooga asagoo xanuunsan oo waali ahaan ah qisadaasi waa qisad culus weey adinin la leeyahay intaad ka nooshay baa naari ka xigta oo indhaha markuu isgaliyo baa islaantu u soo istaagi hada waa hawl xanuun badan weey waali sogon dhimanina nooleyn buu hadda ahalkiisu hayaan ما أدري شيخ هاي wadaad Soomaaliyeed baa isxil qaamay gabadh reerkeedii buu aaday diinka ugu yeeraa waqti badan buu ku bixi reer la yaqaan way maxallu shaahid qisada waxa weeye dadkan gaalada ah hafudaysanina diinka inaad gaadhisaan ilaahay ka cabsada tawxiidka faafiya diinka u sheega dadka qiimaha idan la yeesho waxaad aaminsantiin masaajidii baad ku jirtaan diinkii baad baranaysaan waa shay qiimo badan waa risaaladii rabbi u dambeysay waa dhaxalkii suubanaheen xilba ina saaran nabiga kaleey salaatu wasalaam gadaashiin nabi lama soo dirayo shariico kale la imanaya mas'uuliyadda idinka la idinkaga tagay idinka inaad sii wadaan way balligu anni walaw aaya nabiga ina diray rasuul baatihiin niyaabatan aan rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam xilka ayaan la fududaysan adon af Soomaaliga aqoon ama Ingiliishka aqoon u sheeg tawxiidka saadada ugu celceli saacadaha kugu qaadato markuu tawxiidka ku dhawaaqa kadib cidi wax u sharxaysa afka kugu dhaanta ama luqada kugu dhaanta raadso laakiin isan dhicin ruux gaala oo ku yiri tawxiidka la ay qabto ama islaamka san ku soo gala inaad mermeeriso iska ilaaliya khatartaas ay leedahay sheegay ninka loo jawaabo Wafa al-Baghdadi fi kitab al-Maqamat qissa tariif ku sheegay ninkii boqorka ay reer Faris xukumi jiray loo oran jiray Anu Sharwan loo oran jiray ya maali wuxuu soo maray nin talaalaya geed zaytuuna zaytuunkana waa taqaanana waa geedaha daaha 7 sano u yar ku dhalaaba la sheegaa qoyaal waxay dhahan 10 buu u baahan 20 buu u baahan zaytuun kolba meesha ka baxay ku xiran tahay iyo midhiisa iyo noocyada marka la talaalay almin waa geed sida timirta daaha ama sida liinta daahan aadna u bixin midhiisuna aad u soo daaho waqti dheer u baahan Anu Sharwan buu ku yiri wiil ninkii buu ku yiri boqorkii baa oranaya reer Faris wargeedka talaalayso geed aad iyo aad u daahayo wayo midhiisa aadan gaarin maxaa kugu kalifahaya mad geeda kale iyo hawlaha raadis wuxuu yiri boqorow awyaashana iyo duqayda naga horeysay waxay talaaleen baan anagu dheefsanay buu dhibsan malaha anuguna waxaan talaalay dadka iga dambeeya inay dheefsadaan si fiican buu jawaabay boqorku wuxuu yiri zihba le zihna waxay ahayd waa ahsanta way dhaqanna boqorku wuxuu lahaa duu shay intii loo sheego u bago inuu zih yiraahdo eray hawsha uu zih ka yidina waxa shart ahayd in ruuxaas abaagud loo siiyo 4,000 dirham 4,000 dirham lacag yar ma aha boqorkii markuu ninku jawaab u yiri anigu waxaan dheefsaday wax dadkii igu horeeyay talaalan abuureen anuguna waxaan rabaa wixii aan talaalo
haddaan ka dhinto xataa dadka iga dambeeya inay u baxsadaan zihi baa ka soo booday boqorkii ninkii meesha muxuu ka helay 4,000 dirham buu ka helay ninkii wuu soo noqday wuxuu yidhi boqorow soo hadday imaadan ahayn geedkaadu ma fila inaad dheefsan doonto geedkayu geed ka midha bixin og oo ka degdeg badan oo ka bislaan ogba lama arag buuri maxaa le fii saacatin waaxida ayuu intuu baxayba midho dhalay oo 4,000 dirham baan ka helay buuri muxuu jeedaa lacagtii zih oo ka helay zih boqorka haddana hawl kale u bogay baa la sheego wuxuu yidhi zih ninkii muxuu helay 8,000 oo dirham buu helay ninkii nin xakiim uu haddana wuxuu yidhi boqor uma hadli karaa haa buuri geedaha bini aadamka ay tallaalaan sanadka hal mar bay dhalaan buuri aniga laakiin geedkaygii saacad gudaheed buu 2 koor dhalay buuri muxuu jeedaa 2 goor buu wuxuu ka soo riday dibnaha boqorkii zihi buu ka keenoo axsanta ah wuxuuna ku helay mar walba 4,000 8,000 mar saddexaad baa erayga u boga boqor haddana wuxuu zih muxuu hayaa oday 12,000 dirham buu hayaa boqorku wuxuu yidhi haddaan kan la sii taagnaano wixii khasnada ku jiro dhan buu dhammaystay inaga keena uu ka carar kolba dhan buu ka keenay meeqasii baa socota 12,000 dirham buu ku helay saacad gudaheed marka wuxuu yidhi kan haddaan la sii taagnaano wuxuu dhammaynhayaa wixii kayda inoo yaalla dawladdu iyo faqrin iyo mooraduuga haya oo dhammaynhaya cayrtaynhaya naga dhaqaaji qisadiisi waxaa lagaga sheekeeyey haabiil suuratu lmaa'ida watlu calayhim naba abnay aadama bilxaqi id qaraba qurbaanan marka xogow dembigii uu galay ninkii la odhan jiray ibliis lacanahu allah ayaa asaguna la tegay qaabiilka culamaau siyar watawaariikh wa culamaa التفسير waxay kulli isku waafaqeen calaa riwaayaat mukhtalifa in ummuna xawaa calayha asalaam waxay dhashay ama xamli qaaday 20 jeer 20 goor mar walba waxay dhali jirtay wiiliya gabadh aadam 40 caruur ay u dhashay 40 caruura ayay u dhashay oo ka kooban 20 gabdhood iyo 20 wiil intay ummuna xawaa jannada joogtay abuna aadam iyo iyada aan laga soo saarin jannada ayay qaabiil iyo mataantii jannada ku dhashay qaabiil oo curadka caruurta ahaa u weynaa iyo gabadhii ku mataanta ahayd baa jannada ku dhashay caruurta inteedoo kale waxay ku dhasheen dhulkay ku dhasheen waxaana shariicada nabiyullaahi aadam ay qoraysay oo xukumku ahaa maadaama aadamo kale aan la haynin tarana la rabo oo idinkuma aydan timaadeen sa haddaan la yeelin nin walba gabadha ku mataanta ah asagu ma guursan karo da'da ku xigta wiilka dhalan doonaa guursanaya kanna kii hore wuxuu guursanaya gabadha dambe iman doonta mataanta da'da dambe ku mataanta saasay ahay qaabiil marka wuxuu qabay horta anigu waxaan ahay nin janna ku dhashay oo dadka kale waxbaan dheerahay wabitaali gabadha asaga ku mataanta ahayd ee uurka la jiiftay gabdhaha way ka quruxsanayd qorshe wuxuu keenay gabadha anigu mataantayd baan guursanaya haabiilla wuxuu yidhi maya warda qorshaha ku ciyaarayna qaacidu waxay ahayd adiga mataantaada adugu inaan guursado adna aad guursato aniga mataantayda nabiyullaahi aadamna sidaasuu ku taliya hadde xukunkuna ahaa wuxuu yidhi maya haabiil midda ku mataantaa guursado buuri aniguna taydaha lay daayo wuxuu u arkay marka inuu haabiil wax dheer yahay oo haabiil dhulku ku dhashay aniguna jannay cirkaan ku dhashay buuri midda kale walaashay baa ka quruxsan isaga walaashi isay kaartayni nin walba walaashaa guursado dhibkaasuu keenay kadib waxaa la yidhi si laydin kala saaro bal sadaqa la baxa walba sadaqaha la baxo sadaqada masaakiin wax lagu sadaqaysta waagaa ma jirin hadda yaa adduunkaba jooga 40 caruur u dhalay nabiyullaahi aadam iyo labada waalid maxay maraya maya adu baddaha gelin maskiin wax lagu sadaqaysta ma jiro wixii sadaqada la baxdo in lagaa aqbalay in kale wax lagu ogaan jiray naar baa cirka ka iman jirto wixii aad bixisay
يا ليف جرتي هابيل أري بو دقن جرين أري حول دقتو أها قابيل بيرلي بو أها خلاصة كتب التاريخ والمبدأ والمعاد كقرن بايدين شيء مركا هابيل أسوق هذا نبرة كيسن بوها ميل بالقوة حوله سنيف أو قيمة بطنا أتشعلا أيو صدق أو بحش قابيل وحال شقاسو انتو راشينك يحول دحمر بيرتيسي يو مسجد أو حميد كاني صبولو ولو كو كيري مركو داديو waa sadaqo yuuli sabul fiican oo ku dhaxarkay intuu ka soo ceshaday yuu finch shayba sadaqaysa soo lama aqbalin lixjala adduunyada way gashay xasadna waa galay walaalkii uu xasdayo nidaamkii iyo sharcigana wuu khilaafay idan marka sadaqadii haabil la aqbalay astiisina la diido naarta ay cunu weyday cudad kale u qaaday وحول والله إن أنا لو دحشة كيسنين ودنود أيسن مرينين هابيل يا قابيل باترتميو عند الله وحال أقبلي هابيل قابيل لو الذي ذي سبحان محمد أدونك كتشوق مهيا وكدلها يا أبو علوم وحيلين أود أهان يا عقلي يا حوق يا مرق وحوق بنا هابيل لكن وكعب سبتنا قال لا أقتلنك حول محد يقول لي إنما يتقبل الله من المتقين محان ايدو دنبي يقول هي ان الهي ايغا اقبل صدقات انا لا اقبل واي دنبي كلمه جيرو انت سوق كدلay dilka yaa asaga u tilmaamay ibn jurayj wuxuu sheegay markuu go'aansaday walaalkii inuu dilo wax la dilay waliga Muuse arag bin aadam la dilahayna waliga ma dhicna asaga bilaabi doona ibliis baa iska soo dhigay nin caadi ah ibliis baa halkaas oo kale isku sawiray TV buu u daaray dhagax weyn buu ibliis qaaday قولي ماشن شمبر ماشن فرديو اسكا داقهاي يو مدخ كو بشاق ها سيده شمبركا لو ديلay أنا والك أدل بوسيري دغح وين بسوق والك فرديو مدخ كو جبي ساس والك هابيل كو ديلay قصدي مركا حباشي سي دوغتي سنه قرانكا يا كشكيسا كمراجعيه نينكا وين نينكا هذا لا شيكينيو حسد أول ذنب عصي به الله ما كي سلف كلين والحسد هل قاسي وجهدا إبليس محو نبي الله آدم أمرك يا خيرك كديدي حسد باقاضي قابل والك محو كدلي حسد باقاضي أفرتك عرورتها هاي نبي الله آدم مركي اللي دلويلك سهابي لقيمها بدنا بقول سنة أيو مرق إيا تيرانيو لا تشوغي بالي نبي الله آدم قبايا بدن بحتى تريال عربي لسوق غوريو وقدم بو اسكا صبري نبي الله آدم وحوق جيريودي عروتيسي ودلي waxay sidoo 40 kun oo ruux ah 40 kun oo ruux ma 40 ruux 40 kun ubadkiisi waxay sii dhaleen wuxuu asaga biyihiisi ah iyo wixii ka sii farcamay inaan tagay 40 kun oo ruux iyaga ayuu xijaabta nabi الله آدم عليه الصلاه والسلام هابيل مركو دنتي ويل كلا لا سيو ادو قيم بدنا او هبه الله اللي اورن جري شيثنا لو مغعابا افك اسرائيلي قال لي اما سرياني قال لي ايا الهي سي طوفانك نبي الله نوح وحو دعي ايغو كدو بقولالن كن كدو لكن عروتي ادم ودان iyo ubadkii tarankiisa way dhamaadeen farci shiith oo nabi الله نوح ka soo jeeday kaliya ka soo haray طوفانki بني آدم كوف صوفر عمي كل جود وحياة جليان يكدم بين نبي الله نوح أسقي جليان أبتر آدمي بني آدم أدون كنول بعد نوح ونوح مرين متشرو قرآن كانوا ووت المامي إن أبتك كلي ولش كلي قبله كلي ترم كانوا ودم ما ذا قرآن كاشجي نبي الله نوح مكل لجاه الله سورة الصافات مية مساء شعراء وجعلنا ذريته هم الباقي نوح هو سورة الصافات عفوا إذا ترنك بني آدم كوردان وحوق له نوح بمراويح كهري ويل أذان صادت ننكر يا الله في ليدي أبتر سوء محوري نوح بنكوفر ديابو من ريم على إسوالو أنا إني هبل بانا ولا باتن أو ميل بخش بي ورادو حقيقة قشابو أنا هالكاسان قال محوري ننكر يا الله نوح بنكوفر ديابو بني آدم حقيقة لا نوح وفي عنانك وركيس إذا مرك آفدها الله يسكي إلالي آفدها الله يسكي إلالي حسدك حد قدب كل لباتا سوكينا
in dadka xuma loo horseedana allah iska ilaaliyo الله شجع طريفة إنه يكون سودك آيات أنت يشجعان على كلام في صحتها وإن ضعيفة أنا أبدا لكن كتب التفسير باشيجا مالي معلومة كمية سيدنا عثمان بن عفان بو حسوقي إيبيلان تمر آذو قرحسن بوصوق قد النبي أوكيني صور رب النبي إنه تمرته وحكعنه ساد النبي الله صور دقيقة أن المسكين يجي مع الله يا نون حريستا الله نحريستا النبي قال الله أنت تمرت ديبي ولا دقاقي عنود بو كبلابي عثمان با حق كورغي لانتي بو كسو ايبي مر لباد وحول عقد قادو والله انت اسي وسي وسو عشده نبي الله بل wax ka taawur uu ka soo daba noqday miskiinki baa dana soo jiray maga allah ya allah ku dhowro noo naxariis nabi wuxuu yiri laantii baa dana sii Uthman wuu xumaaday xeer buu ka daba tagaadana mar labaad buu ka soo gaday warbalkee marka dambu wuxuu xoogay in laga iibire uu daayay laantii baa dana nabi Uthman soo iibi nabigu uu keenay uu ka soo daba noqday waa mar saddexaad waa imtixaan waa iibi nabigu hadana waa sii mar afraad buu Uthman soo celiyay marka afraad buu hadan maga allah nabigu wuxuu yiri masaa'il baa tamisa baayic baa tahay niyo man intuu san hayaatay misanin ganacsi u soo shirtay baad laanta afar goor ba laga iibshay maxaa ku daba dhigay ayadu qisadaas ku soo degay wadaadaha qaar kood sheeg waa qisa cajiiba kutubta tafsiir way sheegay laga fiiriyo Abu Sa'id Tha'alabi kitabkiisa Tha'alabi afwan